markasta maxaa ku dhahay hooyadaa waay hadday ku dhashan hooyadaa waay hadday kusoo korisana hooyadaa lee waay wanaag badan ay kuu samaysa intiyaa kula soo ekeysi okay markii laga reebo baahidan hadda aabbaha u baahan tahay oo naaga ku doonayso moogi baaha kalma kusoo galay sooma wax cunto maa hooyada meel aseextana ma weynin ayadaa ku haysay soo maahay soo way ku wanaajisay way ku sharaftay ani hadda waxaa ujeeda wanaag badan oo kuu samaysa hadda baahi aabbaha ugu baahatay markii laga reebo oo yani doonashadaas iyo xaaskaas la raadinaya maogi baahi kale way kaa kaaftoomaysay sooma maam intaasna ani waxaa hubaa mataqaana oo ilaahayna ila ogyahay wiilkan wuxuu yahay adna waa og tahay ilaahayna waa ogyahay ifaan waxa wiilkan yahay suu yahay aabbihiisna waxaa ilaahay ila og inaa ogta ilaahayna waa ogyahay adna waa ogta maxaa oynayaa maxaa oynin maama it's okay maama xumaa ma jirto waa wanaajis wiilkan adi inta yidhiista oo is-uqdadeynaayo wanaaggan dhan oo adigu u samaysay yuu ku ilaabin ma fahmt saa kuu sheego waay adigu waa ogahay qofka marmar waxaa laga yaabaa jeceyl badan oo ku jira in wax u qariyo ma fahmt wuu oynaya asaga adna waa oynaysaa runtu sheeg hal su'aal ku weydiina maanta wax hooyo haddana markii adaan ku imaanee su-aal fara badan anigo kan asaga dhibaato aan kusii qabay haddana su-aal fara badan haddana isii weydiisay su-aal ani waxaan rabay fiiri maamo ruma rabtaa ya ruma rabtido su-aalahan dhan meesha ka saar u baahan hataa su-aalahan waxaa u baahnaa mataqaanaa runta ogtayla u sheeg ma an runta waan sheegay wallaahi billahi inaan waxba qarin ani sida xaqiiqa waan sheegaan okay hal mid ka bas aabe magac waxaa dhahday aweesaan ka awees magaciisa kuwa soo wax loo diray mataqaanaa maya naanay xitaa maya dadka markaas ku rajo waxay ugu wici jireen maxsuusti maya naanay ismaalin okay waay marka xaga ugu dambeysay sacuudi kalankay ya kalankay muxuu ka shaqeyn jiray sacuudi ugu dambeysay muxuu ka shaqeyn jiray hataa shaqadiisa ani shaqadiisa marka hore baawara ku ogaa hadda ma garan gadaalida maan meesha aan ka soo tegay marka ugu dambeysay bas adeeg shay waxa uu ka shaqeyn jiray baawara ku ogaa ka damban ma ogaa baawarka noocee kasaane gaari taxi inuu yaalan sacuudi badanaa taxi laga wada okay waay waa gartay adeer mid uu ku barmi jira aydo waxa uu sheegay bas ayda hada ku sheegayo waday caasha mid la dhaayo way baran caasha markuu ugu dambeysay xagee joogtay idii sacuudi joogto dhankay joogtay anaaksh marka xilligaas aniga aabahay muu noola mas'uuliyad markaas uu barayana walac markaas uu baray hal habeenaba iyada dhan xaafadeeda soo jeeftay markaas ana igu dambeysay gabigeeda dhan marka eedid waa caasho isagana awees waay okay yaa kalan seediga sheegaysa yuu seediga seedigiisa midkan aniga aabaha reer kale u lahaa soo aabaha gabar soo ma qabin okay gabadhu qabo ma garanayo magaceeda gabadhu asaga qabo yaa muusahana la dhashino muusa la dhashay muusa la seedigiisa muusaas batuladaas ka garanaa muusa kale eedada ah magaceeda taqaan amade mid kale uu aabaha ay qabay magaceeda taqaan may makasay taas makasay ma qeyl ma haysay ilmo laan laba ku ogaa waxaad gadaal ya wiil musa gabro wallahi ma ogi laakiin laba cunug inay leedahay ogaan wiil iyo gabar waxay ma ogaan okay waay waxaad already waxaan fahnay mataqaanaa maama informationka adii kaa hayso intaa ognahay waxaa waaye aabaha inuu awees la dhihi jiray qabiilkiisa sheekaba qabiilkiisa hadaan marka u sheegay baan qabiilkan oo jirirka cadcadka ah waan jirir cadcad ee jiraan meel uu ku dhashay ma ku sheegay Soomaaliya ka soo jeedo mar loo soo jeedaas ee Muqdisho laakiin meel uu ka degay ma garanay laakiin Muqdisho loo ka soo jeedo dadka badi Sacuudiga soo galo waa dadka xaggaas ka imaado amri jabi maanaas
xalay hooyada laba fiq kula hadlaysaa ilaahay subxaana qaadirkan way maqlaaya xaaladoodii ay tahay u dhahday hadda ana waa kaa qarin fiiriya warkii le ma la wadaayo waa kaas dhimale ana fiiri waan qarinaya okay waa qarinaya xalay ma igu dhahday doodii ay tahay wartaada i dhageyso waraa caawan maxay leedahay ma haddi xalay waxay qarinaysa laakiin hadda runta ku sheegtay maanta fahna haddaa marka la soo hadlaysay waxaan kuu sheegaa sida dadkan jireerka cadcadka waay aabahada radoon marka la hadlaysa haddaan walaalo kusoo socnaa dhisaas ag fadhine ya caawan kaa maqlaa kugu soo sheega xaggaas caawan kaa maqlaa meel xaggaas markaa ku fiigsaaben taas waa akhrisanaha way maya runteeda waa haddii caawa sheegayso ha hore uu soo sheegay runteeda waa ani hadalka hadda dhahda waa aaminaa okay hore as uu sheegay dhegeysa ana kama soo daa hortagaa aabaha dadkan raxmarka oo jireerka cadcad waay ku dhahay ma fahantay dadkaas waan ku dhahay dadkaasna ma qarsoomayaan 5 daqiiqo la soo qaban hadii sidiisi as sheegay kilo 7 okay badan oo aan waay oo la soo sheegay waxa weydiinaa caasho aadan isxaaq soo magacaaga adiga sacuudiga isku taqaani jirteen asaga ha ma adi qof asxaab aheedeen ama dad daris aheedeen garan jirteen ma jiraan dad badan isnaqaan way jirtaa laakiin dadkii mushkilada taala dadki waa la kala tagtay ma fahantay sacuudiga waa la kala tagtay waa la kala jiitay waa la kala danaystay sacuudiga markii dambe xoogaar qaraar yaraa la soo rogay ma fahantay ilmaha inay canshuur lagu soo rogaa la keenay qofkii 10 cunug haysto $1 inuu maalin walba u dhiibaa la keenay adiga markii dambe dadka qaarna muqdisho isku soo shubeen qaarna Nairobi isku soo shubeen dadka qaar wixii laaman wixii taariib karo taariib dadka saas oo kala dhimeen laakiin dad far badan oo hadda lambaradooda aan hay way jiraan way kala dhimeen ma number muhiim ah waxa rabaa dad daris aheedeen maamaha noqoto yani dad oo iskarin kartiin rabaa hadda inaa ogaa dad waxa jiro oo hadda oo kilo subaas tukaan ku leh dadkan asagana jireerta cadcad Sheekh Cabdullaahi laakiin waxaan weydiiyey nin oo hadda waxaan weydiiyey inta jooga ogeed nin soo sii jooga ayaan xasmar aan weydiiyey niyo odagaas intuu ku dambeeyaan dhahay inaan wax weydiiyey odagaas mar hore dhintay oo dhahay ma fahantay odagaas marka dukaano kala soo ku lahay dukaankiisa ninkan dukaankiisa nagtiisa ka adeegin jirta fahantay asiga markii Sheekh Cabdullaahi la ninkan dadkan jireerta cadcadka waatiyaashi iyo loowaanti iyo waxyaalaha uunsi la far badan oo gedi jira Sheekh Cabdullaahi waxa lagu daray ma xasuusti ma Sheekh waa la yaqaan ninkaas caan waa Sheekh Cabdullaahi hadii Sheekh Cabdullaahi la dhaha kilo 7 jooga habeen ma yaqaan bas habeen ma yaqaan uu garan karaa hadii uu kasi waay haa uu kasa marka Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cabdullaahi sanadka in la soo waafajiyaa fiican waqtiga hadii la cala Sheekh Cabdullaahi waqti ma qiyaas ahaan marka adigu soo tarxiilay ma dhaweyd كعبار عجوجنا أنا أنا أنت لايك مركز أنت لايك مركز قياس كرنا أنا ما حسوسني أنا ما يحل قياس عبد الله وجوب أنا وركي ما له أنتين كري قياس مركز مركي أو أنا سعودي جوجا مركز أنا ولا عن مركز سيتي شيء عبد الله أشياء ويسيد ولا عماه سعودي وجوجا مركز سيتي لا واضح كنا نكون 2000 كنا نكون مركز 2000 كنا مركز سعودي وجوجا هذه والله واضح كن مركز أنت إما واضح كن أو ما لازم نكون أوكي ما دام 2000 كنا شيء أوكي فهذا 2000 كنا نكون 2002 2001 meelaas because aad waxay ku leedahay ayada 22 meelaas ay jirtaa yani age ka yar khilaafa anyway marka Sheekh Cabdullaahi ga odiga marka ninkan hadda aan weydiinay lacag marka oo xawlaad meel u fadhin jirin faanta dadkan hadama qabiilkan hadama la taqaana malana dukaanka Sheekh Cabdullaahi ninkan dukaankiisa isku dhiganay labada dukaan saan isku ahay ninkaas wax ka dirsan jiraan Sheekh Cabdullaahi marka Sheekh Cabdullaahi wuxuu ahaa Sheekh Cabdullaahi ma dirsan jirtay nin kale oo xawlaad oo Sheekh Cabdullaahi isku dhow oo isku dhow yihiin ninkaas asigana dadka baatiyaasha waanti iyo qashinka iyo wixii adiga cadiyo dhan wixii loo baahan dhan adiga hooyooyinka laga heli jiray marka nina dariskiisa waxa waalid haysto marka intuu imaaday Nairobi u imaaday midkan hadda ku sheegay hadamaha Nairobi imaaday inta meelaan xawaalad uu lahan jiray xawaalad isma xasuustaa maxamiro wallah maxamiro okay markaas xawaalad wuxuu ku heesi jiray Jidda asagana marka kilometer 7 ashag ismay bas kilo 7 meesha ku heesi asagana kala daris ahayn maxamed yiro la jiray maanta maxamiro wallah maxamiro asagii markii Sheekh Cabdullaahi waa isqaanin oo isku dhaw isqaanana si fiican isku qaanan okay darsi meesha daris ku ahayn marka ayaan xas markuu inta imaaday intuu dukaanka furtay lacag aniga oo la soo dirdiray nin aan ka hor Sacuudi anoo joogo oo aan lacag aan dhiibtay adiga waxa ka soo wareegtay markaas taa sanooyina ka soo wareegtay
lacagta marka asi sharcigiisa lagu soo qoray casha waxaa la dhahay damiin ahaan lacagtaas adi si casha Nairobi ma joogtaa Sacuudiga kuga Nairobi joogtaa Nairobi markaas iguma ogeyn marka aniga Sacuudiga goorta inta ma warka ma lamarkayga la soo siiyo isoo waxay casha intan xawaalada ku sii haystay miya bas just magaciisa xawaalada xaggaas ku haysta Sacuudiga ka soo tagay marka intuu imaado okay marka oo aan liigu soo diray lacagtii damiin iga noqday kadib ayaan dhaxaas Allah halday هذا إسلي أنت كده كنت عندنا وقت سؤال وذات كاس أو بهنا دهينيو أنتو كدم بي وذات كاس هو أنتو ده عاش إلى نحرس وذات كمرك أوي دي سوقها وذات كهاد أكو شيء ونين كان أبي سفع ويقان شيخ عبد الله أوكي وهو أنتو ده نيكا صح ويدي واي تتفر بدنا مرك أم ويدي وعندي dadka saarawa niganiti araba waxaan dhahay ma aragtay inaan dadkiisu dadka si magacyadooda aan ku dhaan faantay iyo sug balada ay waalin sug caadi waa bis marka asaas ku dhaw wallahi caasho wuxuu dhahay Nairobi Sacuudiga wuxuu dhahay dhibaato far badan ka dhacday dadkii wuxuu dhahay qaar far badan lagu soo rogay dad muqdisho soo galeen dad way taariiban waa la kala qaxo dhahay dunida waxa hadda joog dhahay dad yar jooga dadkii waa la kala hayo la garnay waa la kala hayo okay dadka kale oo weydiisay oo ninkan aweeska ku tuhmaysay wuxuu ahaa ninka Sheekh Cabdullaahi waa dhinta lagu dhahay Sheekh Cabdullaahi si fiican qof kale ma jirtay oo asna maybe jireertaas si fiican yaqaan ninkaas dukaankiisa ay ku adeegin jiray si fiican islantiisa xataa dukaanka ka adeegin jirtay aweeska ma yaqaan ninkan inta isku aragteen maxamed yarogan iskaran kareen maxamed yaroga aweeska isma yaqaanaan waxay is yaqaanaan Sheekh Cabdullaahi isku day inay is yaqaanaan oo kale ma yar xasuusisay oo ma ku ma yaqaan waa xasuusi oo maxaan dhahay Sheekh Cabdullaahi mamada uu qomay maxsanta wili hadda xataa waxaan rabaa inaan sii weydiiyo haddii xataa laakiin aniga wuxuu ugu yiri wallahi aniga Sacuudi mar hore igu dambayso uu dhahay waa ka soo tagay sharcigayga waa soo gatuu dhahay inta imaado dukaana ka furtay meesha markii ayaantii isqalqalataanki wax ka bilaabanay hadda soo sii u wareegin faanti hadda uu jooga laakiin hadda uu jooga soo sii u jooga ay war dambayso lamarkiisa laakiin inaa hayaan jeclaa uu khadka ku jiro aan maalmahaas itbilooyna ka soo wareegtay aan weydiin number waa kala qaadateen soo lambarkii xataa uu haystaa hadda dilka ayaan xasuusantahay ma xasuusano maskax dham ninka ma bahay wax walba ninka hadda sheekadaas kuma furneen adii si hoose wax u raadinaysa Soomaa yani asma ka qarinaysay marka waxa is dhahay asaga waxa rabino in lan filanna ugu dhigan faant markii oo ninkan uu maxamed yarogan uu soo sheegay uu dhahay Sheekh Cabdullaahi uu jooga ninkaas iyo waxa rabay Sheekh Cabdullaahi lambarkiisa siinaan dhahay Sheekh Cabdullaahi markii si fiican isku qan hore ka soo qaban lahaa okay marka asiga igu dhaa marka wadaadkaas uu dhinto dhawaan wadaadu iska ahay ninkaas in masaajid ku xiran oo iska fiican waaye marka uu dhahay wadaadka uu dhintay la naxariistaa dhahay markaan ay dukaankii ugu dambeeyay wallahi wadaadkaas dad badan adiga aad taqaanay uu dhahay oo dukaamadaas eeriyadaas oo dad badan geeriyada uu sheegay okay marka sidaa ku aamusan okay asiga natigiisa hadda xataa inuu nool yahay inuu dhinto horta ilaaha oglaagay hadduu uu dhintay xataa ana xataa mara waxa lagu dhahay qof isoo sheegay uu dhintay abisha lagu dhahay laakiin ani ma huwa laakiin waxa loo ogaan karaa walaashiisa hadee ay joogto iyada anuu sheegi karto markaas oo dhigi karto amuu nool yahay amuu dhintay waxa la sheegay run waaye amuu nool yahay inaan dhigi karto okay sax markaas waa dhintay lagu dhahay aweeska yaa ku sheegay markaas wallahi waxa ii sheegtay gabar oo muujeeda oo Sacuudiga maxaa lagu oranaa ka imaaday oo meelahan adiga ku sheegan ku yiri wallahi waxay tiri xaafada alle wala shaqana mugta Nairobi qof walba xaafadaha sansan wala shaqana mugta wallahi dukaankaas ka adeegan jireen ay dhahday islaantiisa maanin naagta iyadoo dad u sheegaysa aniga maqlayda marka adiga waxaan dhahay ku ogaataa naagtaas inay naagtiisa tahay gabadhaas yaa waa gabadhaas waxa waaye wallahi gabar oo mar hore imid ayaantaan hadda ma arkin laan iyo waxa xareysnaa bariyaan magaceeda mal dhaha Sacuudi ka imaatay dir waa Sacuudi aqbalkeed Faadima la Sacuudi as joogi jirteen Sacuudi dadka wala shaqana soo muuqdo Sacuudi as joogi jirteen marka waxay dhahday adna waa istaqaaneen wiilka aweeska ma istaqaaneen iyada aniga awees inaa isguursan iyada war uma haysan faantay waxaan dhaxmareen ilmaha oo dhalo casmo oga laakiin waxay tiri maalin asoo oo maqaayadaas oo galay dhahday asoo sheekadiisa meesha la sheegay ala soo kulmo dukaankana oo odiga dukaan caan ah waa
haddana maalin aan saas u maqlay tira haddana dukaan kale iskugu imaaday yoo abees naagtiisa dhimatay abeeska marka waxay tiri wiil oo aniga xiriir naga dhexeeyay waxay tiri maxaa luurna aad iyo isku yaqaaneen dadkan asaga wuxuu ahay marmarna ma aragtay shaqadu rabo hadduu rabo makaanika wax walba isku fiiriya wax uu macnaha farantiyaasha ma arkin oo adiga oo la casriye oo gadaal intii dahabka laga gataa la tutumo waxaasiti adiga Allah tacaal ninkaas si fiican isku qarnaa ninkii marka iyada u sheegay ninkaa u sheegay wallaahi ilaahu naxariis ninka saaxiibkii ahayniyo waa ula asxaan badan oo ii sameeyey wallaahi bilaa waa war badan iga haleysnaa xataa uu ii sameeyey hadda maanta maqlay shacablaagana ii sheegay gabadha marka saas yani sheekada igu sheegtay marka okay gabadha sheekadaas dhan inay awees ku gabadha kaga marka sheeg iyada waa soo maqashay wiilkaas le u sheegay way wax ku dina adig ma weydiisay gabadha awees arrimaha awees maxaa sheekada awees maxay ku imaaday isku keenay inuu waxa dhahay Sacuudi adaa iga dambeysay xaaladda Sacuudi ka warnaan Sheekh Cabdullaahi ma jooga waa ka korbaxan faanteed Sheekh Cabdullaahi waa dhintaa liigu dhaasay wax u jiraan dhahay mu dhintaa uu dhintay tirada naxariis wiilko kale oo xataa oo ani wiil xiriir naga dhaxeeyay xataa ma aragtay asagana awees la uu dhintaa dhahay aweeska askiya awees wiilka abismo adaa dhahday miya ha adaa dhahday wiil xiriir naga dhexeyn jira ka dhigtay maya wiil iyada xiriir ka dhaxeeyay ee saaxiibo ahaan jireen wiilkan abis okay waxay tiri nin saaxiibkayga oo Sheekh Cabdullaahi waxaan dhahay uu dhintaa lagu geeriyooda la ilaahu naxariistay saa xaaladiisa kaas waxay dhahay dadkan way iska beenbadin saas amaale ana oo dadku u dhintay tir ilaahu naxariistay waxa ku diina saaxiibkayga waxay tiri wiil kale oo awees dhahay ay saaxiibo ahayna sanadkiisu geeriyooda okay waxa ku diina qof oo qabiilka hadda sheegayso kala ah oo awees ka soo jeedo qof tulkiisa oo aad taqaanin jira gabar ama rag waqtigaas والله نيكاس بينكم شيء أنا أسيق أروس كان معنا أنا أسيق الإسفان اوكي Sheekh Cabdullaahi عبد الله ايوه انا شعب بلا دد كان وحواي dadkan دكان قنا عشان أيوة يا soo isku dad maahayn isku dad wala isku dhinta lagu dhaasay ma sheekada waxay ka saalantaa ku sheegaa ninkan maxamed nuur la raadina maxamed yiro sorry عيرو تلما هي أنا ويدي maya waxa la rabaa sanadkaas waa in la helaa waqtiyadaas dadkii jooga waa in la helaa hadda sanad xataa ma 2018 ka sheekeyne نيو أنا ما حسوس ma 28 ka sheekeyne laakiin waqtiga ninkaas waqti nin rag waa asaga waxa laga yaabaa deedkaas iyo waqtiyadaas inuu haayo tilmaan haddii la galo dad waxaa laga yaabaa dadkaas oo asaga garan kara inay soo baxaan ya marka adiga maama caasho wiilkaaga maxaa ku dhihi lahayd wiilkaaga de xaalkiis waa ujeeda soomaano waa is dhibtiin madaxaas kasoo gasheen markasta madaxaas gasheen dhibka haysta waa ujeeda أسيق دبك هيستنو دتكيس برتله سمره أو إما نبو معنا مهمة الله له سما أنا كاميرا دبش لمرن كقبي مويه هنا أسلق لنا أنا إنا وحشة أنتوا أول ما هذا أوكي weligaa ma ka fikirtay wiilkan in sheekadan kaa daba imaan doonta abiisku weydiin doono maya wallaahi waxaas hadee waxaas inay iga daba imaanayso macnaha hadee hadda leen fahmo mooye markaas ani dhalinyara iska waxaan ma dareensaneen kursanayo ay tar u baahan doona aabahay dadka wax u baahan doona ogeyn xasan ma ku fikirna la taxaa waqti ilaa dhib male okay waa okay hadda marmar khaldaadka badan oo dhaca waaye waxa waaye qof haddii caawa hal wiig isku fahamtiin oo wax dhamaystiin cunugna imaado kastoo waxaa la fiiriya waa la raacaa ama laakiin ma raacin adi hadda ninkan hadda kuley wuu isfahmaa sabab wuu isgarana wuu ogyahay sabab waxa walaalihiisa joogaan wuu isdareema wuu isfaham yani dhib ma qabaa leeda wuu soo hadlaa ninkan oo awees wiilkaada inta ku taagan dhaha asa soo hadlaya soo daldalmay haduuba nool yahay haduu oo geeridan la sheegay haddii ay dhab noqoto amba waxaa soo hadlaysa ninkan idiyaashiisa soo hadlayaan maqlayaan kuley okay sidigna laazim ninkaas nin furfuran waayo sidigna naftiisa inuu soo hadlaa dhici karta keekaas
ninkana ku dhahay caan waa shirqaanka ku tolaa ku dhahay magaciisa muxuu ahaa kaas muuse naftigiisa xataa meel fursan nin furan waay waxaa ku weydiinaa muusahaas sheekh cabdullahi wuu dhintay mogtahay muusahaas un oo asaga sidigiisa ahaa muuse unba ka taqaana wax kale ma taqaanid may wax kaloo loogu daraa walaa ma garan hadda hadduu videoan daawado siduu u ogaan karaa in caashidii markaas joogi jirtay muusa la sheegay inuu asaga yahay suu ka ogaan ada fiiri adig hadda maanta dhallinyaraha tahay sax wala la waqtiyaa kasoo wareegid ani hadda maya waxay isku garan jirteen muusahaas maya macnaha wax ma isku garan jireen yani waxaan ka wadaa hadda lacala haddii lacala aad wejigaaga u arki lahay waxaa laga yaabaa inuu dhaho qoftaas waa xasuustaa dhila mogtahay walaa waqtiyaa kasoo wareegid ma aqoonsan karo ninkaas waagaas dhalinyaro u ahaa nin dhalinyaro ahaa hadda asaga nin da saacadan nin da u noqday dabcan okay diyaar waa aadan ku fahmay meel waxaa jirta laakiin oo aniga asaga oo waxaa jirto aan imaan jirna aan isku soo qarin jirnaa jirta ma fahamtay adi iyo aniga asaga ninkaaga cabdilaahigan gadaashiisa guri habeenka jiifin jirna ma fahamtay adi iyo ninkaaga aweyska waan ogeynaa meeshaasaa jiifin jirna qof kale mana ogeyn gurigaa lahaa guriga adiga maxaa la oranaya waxaa ahaa guri asaga waxay ahayd asaga oo adiga oo walaashiisa miyaa walaashiisa la dhalatay ma ahayd adiga guri noocaas aan isku soo qarin jirnaa jirta ma fahamtay oo sheekh cabdullaahi hadda dhintay gadaashiisa guriga ku yaala sheekh cabdullaahi meeshiisa tilmaam bal haddaa xasuustid meeshii kilo 7 waay kilo 7 xaafad yar weyn waa soomaa kilo 7 waa meel caan ah waay magacaas leedahay okay dabaqa magaciisa inuu sii jeeday dabaqa aad waxaa la Sacuudiga kala baro dhan dabaqyadii waa la jijibiyaa la dhahay okay marka yani marka meel oo sheen hadii aniga adhaa guriga sheekh cabdullaahi gadaashiisa ani asla sii jirin guri reedino ah imaan jirin guri kale ma tagi jirin iyo walaashiisa maanmii oo maaragtay halabeen soo jiifanay anaga xaafad la dhahay oo Sacuudiga walaashiistan waa cashada waa sagal dhalatay intee joogtay anaga okay baro loo raacay Sacuudiga okay wax kale oo xasuusinta ma jiraan oo ku dari karto wiil waxaa jira oo asaga oo seedigiisa ah oo Muuse la dhahay oo sharqaanto la haduu imaqlay kullee oo imaqlay kila soo joogi jiray walaashiisa Muusaas walaashiisa yuu qabi jiray ninkaaga aweyska wiilka abiis wuu qabay Muusahana walaashiisa waa weela dhalatay ninkaana qabi jiray marka aweys la dhahay marka Muuse shirqaan uu tali jiray kilo soo deganaay guriga markaas aniga ayaga mar la noolay ma fahanti okay meeshaas ku baranayna aweys ma iga soo galay meeshaas ayaga mar la noolay yal nooleed ayaga naftirkooda mar la noolay ayaga yaa waxay adi dad badan ka doonanay reer kaniti Muusaha iyo okay Muusaha shirqaanka tolay hooyiis iyo walaalihiisa la noolay aan fahanti okay ninkaan marka meesha oo asaga imaan jiray oo ugu bartin fahanti okay bas Muusaha marka adiga hooyadiisa iyo laba gabdho asaga la dhalatay ay jirto gabdho batuula ka xasuusana mid batuula la oo Muuse la dhalatay Muuse la dhalatay adiga midda oo batuula lahay way gaawantaa kastoo wax xasuusana way gaawantaa Muusaana la dhalatay Muusaas marka Muuse horta ani si fiican u yaqaanaa fahanti waqtigaasna ma dhaweyn horta hadda aan ka sheekeynaa ma dhaweyn waqti dheer way marka ninkaas wiilkiisa raadinaya haduu imaqlaayo aweesa la dhahaa kilo soo deganaan jiray dadkan waxa way cadcad ka ah waaye cadcad maxaa ka wadaa dadkan cadcad adiga oo jareer oo hay ma fahanti laakiin jareer aan loo mamaleeynin sida hadda wiilkan ugu jeedid oo kale oo funkiisa ahay marka saas jirto haduuna maqlay inuu nala soo xiriiro wiilkiisa u baahan si dhaqsiyaha badan haduu Muqdisho joogo haduu meel ba joogo haduu qaxootiyaashu ku nool yahay dad badan waxa jiraan xataa oo Soomaali oo maaragtay oo dhibaato iskaga soo tagay qaxootiyaashan ku noolaa jiraan haduuna maqlay haduu qaxootiga joogo haduu xaqar dheer joogo haduu dhagaxley joogo meeshuu joogo wiilkiisa u baahan si dhaqsiyaha badan inuu nala soo hadlo aan jeclaan lahaa aabe haduu maqlay
aaba wiilkaaga ahay xilliga aniga kugu baahanaha waan joogaa waqtigii aan walaalahay eedooyinkay adeeraday aan baran lahaa baa la taagan yahay aaba hadaa codkayga maqlaysid way arkaysid ama dadka adag kula dhashay aniga ay maqlaayeen eedooyinkay adeeraday walaalahay aniga ila dhashay hadday maqlaayeen waxaan ka codsan lahaa inay la soo hadlaan sida ugu dhaqsiyaa badan oo baahana wiilkoodii baan ahaa waqtigan waqti oo baahanahay familkayga inaan bartaan u baahanahay baan taaganahay maanta 24 waa jiraa markii ugu horeyso aan dadkayga u baahdo aan u baahanahay wayaan ila soo xiriiraan dhihi lahaa lambarka u sheeg lambarkayga whatsappka 07 13 02 31 91 nambarka sadaali soo ma anaa iskala hayaa diyaar ah dhimo leh marka insha allah abeyskaas haduuna maqlayo waa kaas wiilkiisa la soo xariyo si dhaqsiyaa badan okay kiilo subcaan aan ku noolaan jirnay ana asaga waa soo xasuusinaa weli sheekh cabdillaahi guri gadaashiisa aan wada deganaan jirnay sheekh cabdillaahi wuu yaqaanaa sheekh cabdillaahi gajari ma wada degnaan jireen aniga asaa wada deganaan jirnay hadduu imaqlayo sheekh cabdillaahi gadaashiisaan deganaan jirnay aniga adiga waa ogeed marka ila soo xariir marka wiilkaadaa ku baahan waa kaas hadee lambarkiina waa lagu yeeray insha allah muuse haddaa adiga imaqlaysa adigana ila soo xariir insha allah dhimo leh in lagula soo xiriira rajeyna bro insha allah brother okay dhimo leh bye bye